Kolonyo ka tirsan ciidamada BSF iyo saraakiil hogaaminaysay oo deeq waxbarasho u wada degmada Rakaraxo oo kamid ah degmooyinka ay deegaanada nasiibka u yeeshay inay helaan deeq waxbarasho muddooyinkii ugu dambeeyay ee ciidamada BSF ay gaarsiinayeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolada Puntland ayaa soo dhaweyn diiran waxa ay kala kulmeen duleedka degmada Rakaraxo ee gobolka Karkar kadib markii agab waxbarasho ay halkaasi ay gaarsiiyeen. Wardeeqdan waxa bixiyay oo nooga dhigay diyaar deeqdan waxa bixiyay oo nooga dhigay diyaar degmada Rakaraxo keeno dad wada arkaan degmada Rakaraxo keeno dad wada arkaan warjeenala sadiyo ciidamada BSF warjeenala sadiyo ciidamada SF abaal marinteeda rabbi baan ka idahayaa maamulaha iskuulka Axmed Gani oo ugu horeyn munaasabadii lagu soo dhaweynayay deeqdan waxbarasho ciidamada BSF ay gaarsiiyeen degmada Rakaraxo ayaa hadallo soo dhaweyn iyo mahadcelin isku jira goobta ugu soo jeediyay ciidamada BSF iyo madaxdii hogaaminaysay arrintan arkaysan waa arrintii wasaaradda waxbarasho kaban jirtay waa aragtaan oo in looga mahadceliyo inay ciidankii maanta amniga ku darsadaan inay arrimaha bulshada wax ka qabtaan runtii waa arrinay ku mudan yihiin ciidanka BSF iyo maamulkooda iyo ciidanka kulligu oo wax meel leeyahay taariikhda farmaysa taariikhda inay qori doonto insha Allah biidnillaahi kariim. qaar kamid ah waxgaradka Puntland odayaasha iyo maamulka degmada Rakaraxo oo soo dhaweeyay deeqdan waxbarasho ay ciidamada BSF ay soo gaarsiiyeen iskuulka Axmed Gani ee degmada Rakaraxo ayaa mahadcelin u soo jeediyay agaasimaha guud ciidamada BSF General Asad Usman Abdullahi iyo ciidankiisa ayagoona sheegay in waxqabadka ciidanka amniga Puntland BSF iyo madaxdooda aan lagu soo koobi karin mahadcelin oo kaliya balse waxqabadkooda uu ahaan doono mid taariikhda gala. waxaan mahadcelinaynaa BSF oo awal ahayd xooga dalka aan ku ogeyn laakiin ku darsatay arrimaha bulshada waxaan leeyahay Allah in guuleeyo cadawgeena Allah qabto waxa weeye waxaan soo dhaweynaynaa mar saddexaad iyo marhambalyo maamulka BSta muxuu ahaayay ninka la yiraahdo Asad Usman agaasimaha BSta iyo guddoonka arrimaha bulshada BSF la'aantooda halkan ku sugnaaneen har iyo habeen u taagan difaaca sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda Puntland waxaan leeyahay maantana deeqda aad noo gaarsiiseen runtii aad baan idinka mahadcelinaynaa aad baan u soo dhaweynaynaa insha Allah maadaama ay degmadu hooyo noogu yimaadeen waxaan kale uga mahadcelinaynaa agabka waxbarashada oo ay noo wadeen waxaan u mahadcelinayaa ciidamada inoo yimi oo maxay hayto inaga inoo keenay qalabka ardadu wax ku baranayso oo haddii ilaah ku roon yahay ay u baahnayd ay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa taliyaha ciidanka BSF General Asad aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan soo dhaweynayaa ciidanka BSF iyo generaalka oo muddo ka shaqeynayay soo dhaweynta iyo shacabka kaasoo sugay amniga ee Puntland waxaan leenahay soo dhawow mar labaad martaan soo dhaweynaa ciidanka BSF oo qaabilsanaha arrimaha bulshada ahna agaasimaha waaxda arrimaha bulshada iyo xiriirka dadweynaha ciidanka BSF gaashaanle dhexe Cabdiqaadir Cali Xirsi oo ka mahadceliyay soo dhaweyntii ay u sameeyeen maamulka iyo shacabka degmada Rakaraxo ciidanka BSF ayaa sheegay in ciidamada amniga Puntland BSF shaqooyinka kala duwan ay dalka ka hayaan aan ahayn kuwa dana gaar ay ka leeyihiin balse ay yihiin shaqooyin qaran sugidda ammaanka ilaalinta shacabka ee dalka ayuu madaxa arrimaha bulshada ciidanka BSF sheegay inay tahay astaanta ciidamada BSF deeqdan waxbarasho degmada Rakaraxo la soo gaarsiiyay ay kala siman tahay degmooyin iyo deegaano badan oo horey loo gaarsiiyay ma jirto dhisaniska noo timaadeen iyo ku qanacsanaanshaha ciidanka BSF ee xooga Puntland kaalmada uu wado ee hiil walaal oo ah guulihii ilaahay ku galaday ilaa waqti ay waday ummaduna og tahay ilaahayna arko oo runtii aanu u tagno badiya bari iyo dhul masaafo kasta uu leeyahay runtii taasoo ah laa shukran ala waajib halkan waxaanu keenay deeq waxbarasho kadib markii waaxda arrimaha bulshadu assessment ku soo samaysay degmooyinka waaweyn iyo
kuwa eedaa iyo kuwa biidaaba markii la qiimeeyay baahidii dugsiga sare oo ahaa dugsiga rag kor raaxo oo ku yimi qaab isku tashi ilaahayna ku guuleeyay annana waxaanu kow ka dhignay inaanu agabayntii educationka waxbarashada iyo deeq bugaaga soo gaarsiino rako ciidamada BSF oo ka shaqeeya ammaanka iyo nabadgelyada ayaa waayadan waxay si weyn ugu mashquulsan yihiin gaarsiinta agab waxbarasho deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada Puntland si mustaqbalka loo helo jiil waxbartay oo dalka aqoon ku hogaamin kara